dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxa uu socon karaa sanado badan waxayna dunidu u baahan tahay in ay isku diyaariso in Moscow ay isku daydo inay adeegsato hub ka sii xun kuwa imika waxa sidaasi maanta ka digtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska waxaan ka cabsi qabaa in ay tani noqon doonto masaafo dheer tani waxay noqon kartaa sanado badan ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska u sheegtay Sky News Ruushku waxa ay leeyihiin ciidamo xoogan waxaan ognahay in Ukrainiyiinta ay yihiin geesiyaal waxa ka go'an in ay u istaagaan qarannimadooda iyo sharaftooda dhuleed waxaana ka go'an in ay dagaalamaan wasiirka ayaa sheegtay in warbixino sirdoon ay muujinayaan in ciidamada Ukraine ay si wadaan in ay iska caabiyaan soo siqitaanka Ruushka isla markaana xalay ayna dhicin isbedelo waaweyn hase yeeshee waxa ay ka digtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu adeegsan karo hub ka sii dhimasho badan tani waxay noqon kartaa bilowga dhamaadka Putin waxaan ka cabsi qabaa in ay ka go'an tahay in dagaalkan uu adeegsado hababka ugu xun waxaan ka cabsi qabaa in dagaalkan uu noqon karo mid aad iyo aad u dhiig badan waxaan u baahanahay inaan diyaar u noqono in Ruushku isku dayaan inay adeegsadaan hub ka sii xun ayay ku sii dartay hadalkeeda si kastaba ha ahaatee Putin waa inuu ka warhayaa in maxkamadda caalamiga ee dembiyadu ay goor horeba eegayso waxa ka dhacaya Ukraine ayna jiri doonaan cawaaqibyo dhab ah oo uu si shakhsi ah u wajaho ayay u sheegtay Sky News dalalka reer galbeedka ayaa sabtidii isku raacay cunaqabatayno cusub oo maaliyadeed oo ka dhana Ruushka sababo la xiriira duulaanka oo ku qaaday Ukraine kuwaas ay ku jirto bangiyo dhowr ah oo raashiyaal laga saarayo nidaamka SWIFT oo isku xidha bangiyada caalamiga xulafadan ayaa sidoo kale isku raacay tallaabo lagu hortagayo in bangiga dhexe ee Ruushku uu kala wareejiyo xulafada ayaa sidoo kale isku raacay tallaabo lagu hortagayo in bangiga dhexe ee dalka Ruushku uu kala wareejinta maaliyadeed ee caalamiga ah u adeegsado inuu ku xoojiyo lacagta ruble ee Ruushka sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah